xasan daahir aweys oo jooga wadanka Soomaaliya ayaan khadka telefoonka kula xiriirnay sheekh xasan waxaad ka warantaa dilkii loo geystay yani raahday dilkii loo geystay Sheekh Cabdulqaadir Nuur Faarax aqoon intee leeg ayaad u leedahay بسم الله الحمد لله صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم horta gaadidaas aad iyo aad baan uga xanuunsanaynaa ugana xunahay inkastoo hadeed aan u bixiyey shahiidu salaa shahiidkii salaada aan u bixiyey insha allahu tacaala ilahina uga rajaynay in ilaahay ka aqbalo runtiina aan uga tacsiyeynayno dadkii maaragtay qaraabada ahaa iyo ahalkii iyo maaragtay qoladii jamaacadii oo ka tirsanaa iyo kulli aan uga tacsiyeynayno iyo dadkii qaraabada la ahaa iyo qabiilkii iyo wixii maaragtay ku tacalluq oo dhan aan uga tacsiyeynayno marka kolleyba haddii ninkaas ilaa baakii 1968 ama 7 aan isnaqaanay oo maaragtay secondarygii aan isugu nimid maaragtay marka runtii intaasaan wada shaqaynaynay nin aan isleeyahay dacwada tan islaamka iyo khayrka Soomaaliya ilaahay ka siiyey dacwada khaasta salafiga ah cumdo weyn iyo xidhin weyn ama bahalkii maxay ahayd buur weyn buu ka ahaa la dhihi karo runtii aad iyo aad baan maaragtay aanan u aqaanay aanan u wada shaqaynay alxamdulilah rabbilcaalamiin muddo badan oo intaa la eg marka hadeed warka ku dhacay inkastoo hadeed caadada islaamku ay tahay shahaadada waa la isugu hambalyeeyaaye la iskagama tacsiyeeyo laakiin haddana waa qisad xanuun badan oo la dhihi karo dadka waxaa ka dambeeyey waxay rabeen inay ummaddu miro kabriid noqoto oo qof dhaama aan laga waayo sidii looga fushan lahaa maaragtay muraadka laga leeyahay hadeed arrintu marka insha allahu tacaala waxaan ilaahay ka rajaynayaa in Sheekh Xasan waxaa la leeyahay qolada aad ka tirsan tahay ee al-shabaab ayaa la leeyahay dilkaasi waa ka dambaysaa oo waliba culamaa udiin waaweyn oo caan ah oo shiiqa saaxiib la ah adigana ku yaqaana ayaa waliba eedahaasi jeedinaya ka sokow siyaasiyiinta marka maxaad isleedahay yaa ka dambeeya ayaad isleedahay walaal horta anigu meeshiina ma joogo haddana baaritaanna hadda ma aanan gelinin xogta halkaas aan ka hayna waa iska yartaha laakiin mar kastaba waxaan leenahay annagu wixii noocaas oo kaleeta ah ummadda lagu naafaynayo afcaasha noocaas oo kaleeta beri baan ka nahay wixii aniga iyo ciddii maaragtay bahalkii muxuu ahaa islaamka iyo ku dhaqankiisa iyo bahalkii maxay ahayd ixtiraamkiisa iyo akhlaaqdiisa iyo aaminsan oo dhan iyo culummada intii aan ka warqabo waxaas waa runtii waa inkiraynaa waana beri baana ka nahay oo wax hadda maaragtay naga khuseeya bahalkii muxuu ahaa ama ka warqabno oo warnaan ka haynana ma aha baaridaanna kuma aynaan samayn laakiin falkaa dhacay waa fal xun weeyaan isku waafaqsanahay waa fal xun weeye ciddii samaysay marka waxa weeyaan ma ay wanaajin mana wanaagsana mana ku ammaana bal waa ku caayan tahay hadday tahay kuwo maaragtay cadow dabadda iyo hadday kuwa daakhilo tahay hadday wadaada yihiin waxaa laga yaabaa hadduu xataa wadaad yahay waa wadaad laga yaabo waxaan dhihi jiray wadaad misele ku qalloocatay waa iska jiraa marka insha allahu tacaala waxaas wax oo baalkii maxay ahayd baalkii muxuu ahaan ka beri nahay weeye ilaahayna aan uga beri noqonayno afkiisa ummadana aan u sheegayno inaana waxaas aanan kana warqabin lugnan aan ku lahayn raallina aanan ka ahayn ummaddu waxa ay ka tahay inaan ka noqonona iyo ummadda islaamka oo dhanba welibana uga tacsiyeynayno arrintaas marka saas waa tahay Sheekh Xasan anigoo ka faa'iideysanaya bal waad la socotaay oo hadda xaaladdu waa sii xumaanaysaa shiiqana runtii geeridiisa meel walba waa looga tacsiyeeyey adiga sidaa hadda u tacsiyeysa laakiin arrinkani culummadu ay isku raacayso culimmada waaweyn oo ay al-shabaab farta ku fiiqayaan
adigu ma shakhsi baad beri uga ahaa baa leedahay mase waxaad leedahay al-shabaab oo dhanba falkan oo kale ma samaynin horta waxaa wixii markaas cilmi lagu leeyahaa laga jawaabaa waxaan idhi anigu hadda waxaan haystaa geerida iyo ciddii samaysada ciday tahaba marka kaligeyna hadda kuma iyo warkaas maaragtay culamo badan aan ka wada hadalnay sida runta ah oo arrintaas inaan bahalkii muxuu ahaa inkirna aan ka wada hadalnay marka arrintaas sideeday munkar u tahay in laga beri noqdana ay sax ku tahay laakiin hadda cid aan anagu aan garanayno nidaano oo aan hubno ma naqaano ninka waa geerida ku dhacday oo meesha ajiib kale oo masaajidkii iyo safkii hore iyo salaadii casar oo jumcadii ka dambeysay oo saacatul ijaaba inay ku jirta laga yaabo arrintaas marka arrintaas saas u dhacday cidda samaysay ciday tahayba waxa weeyaan cid fiican maaha cid wanaagsanna ma cid lagu waafaqsan yahana maaha wax lagu waafaqi karana maaha marka waa tahay adiga maaragtay aniga iyo rajii la jiraaba aan falkaan baan beri kana laakiin cid hadda samayso anagu aan ku naqaano ayaan hadda jirin waa tahay hadda isbedelo badan iyo ra'yiga dadka iyo ficilka iyo wax walba marka la fiiriyo Soomaaliya isbedelo badan baa ka dhacaya adigu mowqifkaagii maxaa iska bedelay aad hore u haysatay oo aad kaga soo horjeetay ama dawlad ama nidaam hadda socda aad uga soo horjeetay adigu hadda horta sida badanaaba hadda meesha uma aana soo fariisan hadda in oo bahalkii muxuu ahaa siyaasad aan ka hadlo uma soo fariisanin waxaan usoo fariistay ninkaas walaalkeeya oo dhibkaasi loo geystay iyo dhibkaasi inuusan igu dhaafin maaragtay kaamus iyo ismoogeysiis mina usan igu dhaafin aad iyo aad baan uga xumaan in aan jeclahay buu maaragtay runtii ahaa ilaahay agtiisna aan khayr uga rajaynayo haddana aan dareemayo meel maaragtay fiican inuu maaragtay insha allah ku shahiiday biidni illahi tacaala marka arrintaasaan rabay inaan wax ka iraahdo laakiin hadda waxa weeyaan siyaasad uma aana soo fariisan meesha haddaanse hadda kuu soo koobo anigu nin mabaadi lahaan ahay mabaadidaydu marka siyaasadeyduna mabaadidayday daba socotaa mabaadida marka inaan bahalkii muxuu ahaa aan laysku waafaqin way iska dhici kartaa laakiin hadalka anigu sida badanaa waxaan wax ku diido iyo waxaan wax ku yeelaba waa mabaadi waaye mabaadidaas islaamka weeye wixii asaga islaamkii uu aan ku qaadan karana inaan ku qaataan jeclahay wixii aan ku qaadan waayo is iraahdo islaamkaaga iyo taariikhdaada iyo islaamkaaga iyo ummadda danteeda iyo midna aan kuma fiicnana inkiraada waxa weeyaan ka dayn mahayo insha allahu tacaala haddana waxaan u haystaa weliba muxuu ahaa nin oo maaragtay ka idaaro fiican waa iska dhici kartaa laakiin wadciga Soomaaliya hadda jira weli dad aan isleeyahay waxbay ka bedeli karaan ma aysan maaragtay ma uma jeedo waxa jira wax ka bedeli kara ciidanaa jooga cadow waa jooga ummadayadiiyaa maaragtay la laynayaa waxa weeye khasabaa maaragtay lagu haystaa ciidana maalin walba la keenahayaa taangiyaalka maalin walba socda diyaaradaha socda ummadayadiia marka waxa weeyaan cadow baana haysta cadowgaasna haysta yani wax ka bedelka bahalka wuxuu ku salaysan yahay cadowgaas in maaragtay wadankii oo uu ka baxo khiyaarka iyagana aan u tashano ciddii aan rabnana oo maaragtay ummadda Soomaalida isku waafaqsan tahayna aan madax ka dhigano nidaamkaan rabnana aan qaadano waxa aan maaragtay anaga ku fakarayna saas weeye ilaa taas helnana waxa weeye mowqifka iyagaasi waxa weeye saas u taagnaanaya insha allahu tacaala qof la dirir iyo dad nicid iyo hebel ma raba iyo hebel ma jecli iyo hebel waa xumeeye iyo warkaas oo dhan aniga agtayda ma yaalo iyo wixii ilamidaba insha allahu tacaala allah ku barakeeyo waad mahadsantahay Sheekh Xasan Daahir Aweys oo khadka telefonka isagoo jooga wadanka Soomaaliya aan kula xiriiray aad baan ku salaamayaa Sheekh Xasan waa mahadsantahay salaam alaykum